ninkii shaqaalaha dhismaha ahaa ee badbaadiyey naf dad badan. Qadar magaalada Doha waxaa ka shaqayn jiray nin ajnabi ah oo sabool ah, kana mid ahaa shaqaalaha dhismaha. Wuxuu shaqayn jiray saacado dhaadheer, mushaar yar, mana lahayn cid uu ku tiirsanaado marka laga reebo Ilaahay iyo sabirkiisa. Maalin qorrax kulul ah, isagoo ka shaqaynaya dhismo dheer, ayuu arkay wax aan caadi ahayn. Dabaq sare ayaa ka soo baxayay ur gaas iyo kulayl xad daaf ah. Dadka qaar ma dareemin khatarta maadaama ay ku mashquulsanaayeen shaqadooda. Ninkaas, inkastoo uusan ahayn injineer ama kormeere, wuu istaagay. Wuxuu xasuustay tababar kooban oo badbaado ah oo mar loo sameeyey. Wuxuu ku qayliyey shaqaalaha wuxuuna ku adkaystay in shaqada la joojiyo. Qaar way ku qosleen, qaarna way iska indha tireen. Laakiin ninku ma quusan. Wuxuu si degdeg ah ugu wargeliyey waardiyaha iyo maamulka dhismaha. Dhowr daqiiqo kadib, qarax yar ayaa dhacay, laakiin dhismaha waa la daadgureeyey, wax naf ahna ma lumin. Baaritaan kadib waxaa la xaqiijiyey in haddii daqiiqado kale la sii shaqayn lahaa, musiibo weyn dhici lahayd. Arrintaasi waxay gaartay warbaahinta Qatar. Dowladda iyo shirkaddii dhismaha waxay ninkaasi ku abaalmariyeen abaalmarin lacageed, oggolaansho shaqo oo rasmi ah, guri iyo daryeel sharci ah. Magaciisana waxaa lagu xusay ninka badbaadiyey nolosha dadka. Markii la weydiiyey sababta uu u istaagay, wuxuu yidhi: ma ihi nin weyn, laakiin qalbigayga ayaa ii sheegay in naf la badbaadiyo ay ka weyn tahay shaqo kasta. Casharka qisada: qof walba, xitaa kan ugu saboolsan, wuu samayn karaa wax weyn. Geesinimadu ma aha xoog, waa go'aan sax ah wakhtiga saxda ah. Ilaahay wuu kor qaadaa qofka daacadnimada iyo niyadda wanaagsan leh. Kadib markii dhismaha la daadgureeyey, maamulka shirkadda iyo ciidanka dabdemiska Qatar waxay bilaabeen baaritaan degdeg ah. Waxaa la ogaaday in dhuun gaas ah oo qarsoon ay dilaacday, taas oo keeni lahayd qarax weyn haddii shaqadu sii socon lahayd. Shaqaalihii horay u qoslay ninka saboolka ah, hadda waxay ku istaageen yaab iyo mahadnaq. Qaar ayaa si toos ah u yidhi: haddii uusan adiga jirin, maanta halkaan ma joogeen. Maalmo kadib, ninka waxaa loo yeeray xafiis sare oo ku yaala Doha. Wuxuu moodayey in shaqadiisa laga joojinayo, qalbigiisuna wuu gariiray. Laakiin wax lama filaan ah ayaa dhacay. Mas-uul sare ayaa istaagay, wuxuuna yidhi: adigu ma tihid keliya shaqaale, waxaad tahay nin badbaadiyey nolosha dad badan. Waxaa la guddoonsiiyey abaalmarin lacageed, shaqo rasmi ah oo ammaan ah, hoy sharci ah, iyo warqad mahadnaq ah oo ka timid hay'ad qadari ah. Ninkii saboolka ahaa indhihiisa ayaa ilmo ka qubatay. Wuxuu keliya yidhi: waxaan sameeyey wixii qalbigaygu ii sheegay. Ilaahay ayaana mahadda iska leh. Maalintaas kadib, noloshiisii way isbeddeshay. Laakiin isbeddelka ugu weyn ma ahayn lacagta. Waxay ahayd ixtiraamka iyo karaamada uu helay. Dardaaran dhiirigelin: ha iska yaraysan naftaada. Hal go'aan oo sax ah ayaa beddeli kara noloshaada. Ilaahay wuu arkaa camalka qarsoon. Bilaha kadib abaalmarinta, ninkii mar ahaa shaqaalaha dhismaha noloshiisu si buuxda ayay isu beddeshay. Wuxuu helay shaqo xasiloon, hoy ammaan ah, iyo nolol uu weligiis ku riyoon jiray. Laakiin hal arrin ayaa qalbigiisa ka guuxaysay. Maalin ayuu mar kale booqday dhismihii uu ka shaqayn jiray. Shaqaalihii cusub ma aqoon, kuwo horeyna qaar badan waa tageen. Isagoo istaagay meesha saxda ah ee uu khatarta ka arkay, ayuu neef dheer qaatay. Markaas ayuu ogaaday runta ugu weyn. Haddii uu maalintaas aamusi lahaa, haddii uu ka baqi lahaa in lagu qoslo, haddii uu yidhi aniga maxaa iga galay, boqolaal qof maanta ma noolaan lahaayeen. Wuxuu gacanta saaray laabtiisa wuxuuna yidhi: Ilaahay ayaa i doortay maalintaas, aniguna waan aqbalay. Wixii maalintaas ka dambeeyey, ninkii wuxuu bilaabay inuu ku baraarujiyo shaqaalaha cusub badbaadada, isagoo leh: hal cod oo aad maqashid, hal qalad oo aad aragtid, ha iska indha tirin. Wuxuu noqday tusaale nool oo muujinaya in geesinimadu aysan u baahnayn darajo, halyeynimadu aysan u baahnayn magac, qalbiga daacadda ahi uu ka weyn yahay mansab kasta. Casharka ugu dambeeya.
Mararka qaar Ilaahay wuu ku tijaabiyaa adiga si uu dadka kale u badbaadiyo. Ha yaraysan codkaaga, waxaa laga yaabaa inuu noqdo furaha badbaadada. Qof caadi ah ayaa samayn kara wax aan caadi ahayn. Kuwa daawanaya YouTube-ka. Haddii qisadan ku taabatay, like saar. Subscribe si aad u hesho qisooyin dhab ah. Faallo ku reeb, maxaad adigu samayn lahayd? Halka kani waa Baxar Nahri. Qisadana laba badcodkii hooyada ee daaqadda hoosteeda. Waxay ahayd habeen caadi ah, xaafad degan, dadkuna hurdaan. Nin dhalinyaro ah oo shaqo la'aan ahaa ayaa fadhiya qolka yar ee uu kiraysto. Qalbigii wuu buuxsamay, dayn, rajo beel iyo mustaqbal mugdi ah. Telefoonkiisa ayuu damiyey. Daaqadda ayuu istaagay. Maskaxdiisa hal fikir ayaa ku wareegayay, haddii aan maanta dhammeeyo, xanuunkuu istaagayaa. Isagoo tallaabo u jira go'aan aan laga soo noqon, cod daciif ah ayaa ka yeeray hoosta daaqadda. Wiilkaygii, war ma ima qashaa? Waxay ahayd hooyo duq ah, deriska hoostiisa degan. Bac yar ayay sidatay, gacmahana way gariirayeen. Fadlan i caawi, jaranjarooyinka ma kori karo. Ninku wuu istaagay. Qalbigiisa laba qaybood ayuu noqday. Mid wuxuu lahaa, iska indha tir, midna u dhaadhac. Ugu dambayn wuu u dhaadhacay. Wuxuu bacdii u qaaday, hooyadii kursi u saaray. Intay fadhiisatay ayay indhaha ku fiirisay, tiri. Ilaahay ha ku barakeeyo wiilkaygiiyow, adigaa ii ekaaday kii aan waayay. Ereygaas kii aan waayay ayuu qalbiga ka jaray. Ninku wuu ooyey markii ugu horraysay muddo dheer. Hooyo, maxaad ula jeedaa? Ayuu weydiiyey. Waxay tidhi, wiilkaygii wuu isdilay maalin uu u malaynayay inuusan cidna u baahnayn. Halkaas ayuu ninku fahmay. Ilaahay ayaa ka soo dejiyey daaqadda si uu naftiisa u badbaadiyo. Wuxuu ku noqday qolkiisii. Telefoonkii wuu shiday. Qof ayuu wacay. Wuxuu yidhi, waan noolahay, caawin ayaan u baahanahay. Dardaaran. Mararka qaar badbaadadu waxay ku timaadaa cod aad iska indha tiri lahayd. Qofkuu baahan ayaa laga yaabaa inuu yahay furaha badbaadadaada. Ha go'aansan habeen madow, subax baa imanaya. Codkii hooyada ee daaqadda hoosteeda. Maalintii xigtay, ninkii dhalinyarada ahaa hurdo ma seexan. Maskaxdiisa waxaa ku soo noqnoqday hadalkii hooyada. Wiilkaygii wuu isdilay. Subaxdii wuxuu hoos ugu dhaadhacay si uu u hubsado hooyadii. Albaabkii ayuu garaacay. Codkii daciifka ahaa ayaa yidhi, yar yahay. Aniga ayaa ah wiilkii xalay ku caawiyey. Albaabkii waa la furay. Hooyadii indho ilmaynaya ayay tidhi, Ilaahay baa kuu soo diray, wiilkaygiiyo. Waxay u diyaarisay shaah fudud. Intay cabbayeen ayay u sheegtay qisadeeda, wiil ay keligeed dhashay, rajo weyn u ahayd, balse murugo iyo kelinimo ku kaliftay go'aan xun. Haddii hal qof uu la hadli lahaa, ayay tidhi, weli wuu noolaan lahaa. Ereyadaasi qalbiga ninka ayay daaweyn u noqdeen. Wuxuu ogaaday inuusan keligiis ahayn, xanuunkiisuna uu la wadaago dad kale. Maalintaas wuxuu qaaday tallaabo yar. Wuxuu la xiriiray saaxiib hore. Wuxuu bilaabay shaqo yar oo ku meel gaar ah. Wuxuu ballan qaaday inuusan mar dambe aamusi doonin. Maalmo kadib, hooyadii waxay ku tidhi, adiga ayaa i siiyey sabab aan u noolaado, adiguna Ilaahay ha ku siiyo sabab aad u sii noolaato. Ninku wuu dhoola caddeeyey, dhoola caddayntii ugu horraysay ee run ah muddo dheer. Dardaaran. Caawinta qof kale mararka qaar adiga ayay kuu noqotaa dawo. Hadal yar ayaa badbaadin kara nolol dhan. Haddii aad murugaysan tahay, la hadal qof. Bilaha kadib, ninkii dhalinyarada ahaa noloshiisu si tartiib ah ayay u hagaagtay. Ma noqon mid hodan ah, mana helin nolol quman, laakiin wuxuu helay wax ka qiimo badan, ujeedo. Wuxuu noqday qof hooyada mar walba u gargaara. Mararka qaar wuxuu u qaadaa daawo, mararka qaarna keliya wuu u fadhiistaa si uu ula sheekaysto. Hooyadii waxay mar walba ku dhihi jirtay, markaad ii timaado, gurigaygu wuu iftiimaa. Maalin maalmaha ka mid ah, hooyadii ayaa si hoose ugu tiri, wiilkaygii, xalay ayaan ku riyooday wiilkaygii dhintay. Wuu dhoola caddeeyey. Ninku wuu naxay. Waxay sii raacisay,
wuxuu igu yidhi, hooyo ha murugoon. Ilaahay qof kale ayuu kuu beddelay. Halkaas ayuu ninku fahmay sirta ugu dambaysa. Isagu ma ahayn keliya qof la badbaadiyey. Wuxuu ahaa beddel loo diray. Ilaahay wuxuu ka soo dejiyey daaqadaas si uu labo naf u badbaadiyo. Maalintaas kadib ninku wuxuu bilaabay inuu la hadlo dhallinyarada murugsan isagoo leh. Haddii aad dareento in adduunku kaa xirmay, hal daaqad ayaa weli furan. Qisadu halkaas kuma dhammaan. Waxay noqotay bilow cusub. Casharka ugu dambeeya. Qof kasta wuxuu leeyahay wakhti uu Ilaahay u doorto. Murugadaadu waxay noqon kartaa badbaadinta qof kale. Ha quusan, waxaa laga yaabaa in laguu baahdo maanta. Haddii aad halkan nala soo gaartay, mahadsanid geesi. Haddii aad jeceshahay qisada, ha iloobin inaad subscribe saarto channelka Baxar Nahri. Like saar, comment reeb, nala wadaag saaxiibada si aan kuu keeno qisooyinka sii yaab badan. Baxar Nahri, qisooyin dhab ah oo qalbiga taabanaya.